shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa kana qayb galeen ergo tiradoodu dhan tahay 1300 oo ergey oo ka kala socday gobolada Somaliland iyo laamaha dalalka dibadda ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay xubna ay ka mid yihiin xildhibaan Axmed Cabdi Ibrahim Timajilic oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland Abwaan Aadan Tarabi Marwa Baar Siciid oo ka mid ah golihii hore ee wakiilada Sucaad Carmiye Odawa siyaasi Cali Cabdi Saa'iq iyo xubno kale oo qurba joog ah oo halkaasi hadalla ka jeediyay ayaa siyaabo kala duwan u soo bandhigay dhaliilo iyo talooyin ay u jeedinayaan xukuumadda kulmiye ayagoo sheegay in haddii xisbiga oo codka la siiyo uu wax badan ka qaban doono tabashooyinka bulshada fanaanada Sahara Axmed Cabdilaahi Sahara Ilays oo ka mid ah fanaaniinta reer Somaliland ayaa ka hadashay shirweynaha waxayna halkaasi ka cadaysay in shaqadii ay ka haysay xukuumadda Somaliland laga joojiyay kadib markii maalintii shalay ay hees ka qaaday xafladii furitaanka shirweynaha labaad ee xisbiga wadani hawl shaqaan saaka xiradii u tago xalay baa la ii yeeray deedna saaka waxa la igu yiri Sahray maadaama aad u heestay wadani shaqadii waanu ka joojinay waanaanu ka erinay marka kulmiye iyo wadani waa laba xisbi kulmiyaba shalay waanu heesay maantana wadani waanu heesayaayo deesba waa xisbi siyaasi Maxamed Jaamac Galaal oo isna hadal ka jeediyay shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhaliilo kala duwan u jeediyay xukuumadda kulmiye isagoo xusay in wadani uu noqon doono mid ka horumar gaarsiiya dalka haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada madaxweynahan iyo xukuumaddani 4 sanadood ee ay joogtay wax badan bay ina bartay waxay ina bartay dhalinyaro wakiila looga dhigo hay'ado dawli ah oo waliba exclusive looga dhigo iyo ina bartay waxay ina bartay wasaarad arrimo dibadeed oo 6 bilood bilaa wasiira waxay ina bartay hay'adda wadooyinka oo dadku ka qaylinayaan wadooyinkii iyo ballanqaadyadii oo 9 bilood yaduna bilaa gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeena waxay ina bartay wareegtooyin madaxweyne oo dhukus iyo dhuumaalaysi iyo dhugdhuglay lagu dhiibo waxay ina bartay sirtii qaranka iyo archive-yadii madaxtooyada oo banaanka iyo baraha bulshada la soo dhigo iyo ina bartay waxay kaloo ina bartay sida malabka farta loogu dhuuqo garyaqaan Maxamed Saalax Ciga ayaa shirweynaha ka hor akhriyay wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay xeerka xisbiga wadani iyo qodobada wax lagaga bedelay ay ugu muhiimsan yihiin kuwa ka hadlaya qaab dhismeedka hoggaanka xisbiga wadani shirweynuhu waxa uu dooranayaa hoggaanka xisbiga oo ka kooban gudoomiye ku meel gaar ah hogaamiye 5 gudoomiye ku xigeen koowaad ilaa 5aad xogayaha guud ku xigeenka xogayaha guud iyo xubnaha kale ee hoggaanka xubnaha isu sharaxaya jogooyinka kala duwan ee gudoomiye ku xigeenka koowaad labaad saddexaad afraad 5aad xogayaha guud iyo ku xigeenkiisa waxay arji qoraal ah u soo gudbinayaan guddiga qabanqaabada shirweynaha 14 cisho ka hor maalinta loo cayimay inuu qabsoomo shirweynuhu waa qodobkaas haysaan qodobka waxa loo bedelay oo uu noqon doonaa faqradiisa 5aad shirweynuhu waxa uu dooranayaa hoggaanka xisbiga oo ka kooban gudoomiyaha xisbiga 6 gudoomiye ku xigeen 3 xogayaha guud ku xigeenka xogayaha guud kadib shirweynaha ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay xeerka xisbiga wadani kadib waxa la gudagalay doorashada xubnaha hoggaanka xisbiga wadani maamuli doona 5 sano ee soo socda waxa uu codeeyay inuu xirsi xaaji cali xasan noqdo gudoomiyaha xisbiga 5 sanadood ee soo socota 1225 sidaas aanu ku noqday gudoomiye inta ogolaatay inay Marwo Milgo Maxamed Cilmi ay kan mid noqoto gudoomiye ku xigeenada xisbiga wadani waxa ogolaaday 157 inay Marwo Milgo Maxamed Cilmi ay kan mid noqoto
gudoomiye ku-xigeenada xisbiga wadani waxaa oggolaaday 1,157 waxaa diiday 38 waxaa ka aamusay 42 sidaasaana milki ku noqotay gudoomiye ku-xigeenka sharciga ee xisbiga wadani waxaa codeeyey 1,167 toddobiyo way diiday 37 way ka aamustay sidaasuu ansax ku yahay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga 5 sannadood ee soo socda abubakar cabdiraxmaan good wacays 1,177 qof ayaa oggolaatay inuu xamarji ahaado 5 sannadood soo socda gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani maxamed xaaji yuusuf axmed waabeeyo 1,213 ayaa diiday 11 way ka aamustay sidaasay ugu sugnaatay maxamed xaaji yuusuf axmed waabeeyo inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani 5 sannadood soo socda inuu Saleebaan Ducaale xaaji jaamac ahaado gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani 5 sannadood soo socda waxaa oggolaaday 1,290 ayaa oggolaaday waxaa diiday 18 soddonna way ka aamustay sidaasuu ansax ku yahay Saleebaan Ducaale xaaji jaamac waxaa oggolaaday xuseen cabdi boos inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani 5 sannadood soo socda 206 ayaa oggolaaday waayahay waxaa diiday 11 20 way ka aamusan sidaasuu xuseen cabdi boos ku yahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani 5 sannadood soo socota dhinaca kale shirweynaha ayaa khadar xuseen cabdi u doortay inuu noqdo xogayaha guud ee xisbiga wadani iyadoo ay u codeeyeen 215 ergey waxaana diiday 24 xubnood halka ay ka aamuseen 12 ergey waxaana ku-xigeenka xogayaha guud loo doortay Jamaal Jaamac Xaamud gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ayaa isagana loo doortay Cismaan Ibraahim Nuur Afgaab waxaana ku-xigeen gudoomiyaha golaha dhexe loo doortay Diris Cabdi Maxamed halka xogayaha golaha dhexena loo doortay Maxamed Daawud Maxamed waxaa kaloo shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka wadani lagu doortay hanti dhowraha xisbiga wadani Xasan Xuseen Codyare ayagoo ku-xigeenka hanti dhowrka loo doortay Axmed Aw Daahir Xaaji Xasan iyo Mubaarig Cabdi Xasan Buuni oo loo doortay inuu noqdo xogayaha hanti dhowraha xisbiga wadani ku-xigeenka murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga wadani Maxamed Cali Aw Cabdi oo halkaasi khudbad ka jeediyey ayaa ballan qaaday inay xisbi ahaan fulin doonaan ballamaha kala duwan ee ay u sameeyeen bulshada isagoo dadweynaha ka codsaday inay cod ka siiyaan xisbigooda marka la gaadho doorashada madaxtooyada waxaan ugu bishaaraynaynaa aan u ballan qaadanaa dowladda wadani inay qaadi doonto oo ay deeqi doonto oo ay kafayn doonto ummadda Soomaaliland meel joogtaba sababtoo ah ummaddu waxay u baahan tahay cadaalad iyo sinaan iyo in la wada yeesho xisbigu wuxuu ballan qaadayaa inuu fulin doono ballamihiisa oo la wada yeelan doono xukuumadda Soomaaliland ee uu horboodka ka yahay waxaan u baahannahay hoggaan mideeya ummadda waxaan u baahannahay hoggaan u cadaalad soora waxaan u baahannahay hoggaan horumarka ka shaqeeya gudoomiyaha cusub ee loo doortay xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa halkaasi ka jeediyey ayaa soo bandhigay hiigsiga iyo qorshayaasha xisbiga wadani uu doonayo inuu bulshada ka iibiyo waa adeegaha bulshada ilaaliyaha qaranka iyo horumaryaha dalka sidoo kale aragtida xisbiga waxaa ku qoran ee iminka jirta waxaa ku qoran hiigsiga wadani waa jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku waarta dal iyo dad midaysan annaga oo sugnay qormada aanu ku leenahay adduunka ahna qaran dhistay bulsho ku nool nabad barwaaqo iyo dimuqraadiyad haddii ay la qaadataan waxaan odhan lahaa aanu bedelo wadani wuxuu u taagan yahay ilaalinta dalka dadka iyo diinta xaqiijinta jamhuuriyadda Soomaaliland dhisidda bulsho ilbax ah iyo dawladnimo casri ah waxaan xoogga saari doonaa ka qayb qaadashada wax kasta oo ku saabsan dhismaha dalka kobcinta xidhiidhka bulshada iyo isku duubnida iyo midnimada dalka xoojinta dhaqaalaha iyo horumarka ilaalinta dhaqanka suuban iyo diinta
ku dhaqanka shuruucda rule of law iyo dhowrista xorriyadka asaasiga ah xoojinta maamul wanaagga oo ka bilowda xisbiga ilaa xukuumadda waddani insha allahu ay hoggaamin doonaan cabdiraxmaan iyo maxamed annaga oo mudnaanta siin doona tababarada ama tababaridda iyo kor u qaadidda aqoonta iyo dareenka ku wajahan xisbinimada isla markaana wakhti gelinayna soo saaridda kaadirka xisbiga kaasoo u diyaarsan inuu kaalin muhiima ka cayaaro hannaanka dimuquraadiyadda iyo tartanka waddani ugu jiro inuu hanto talada dalka kuna hirgeliyo barnaamijyada siyaasadeed barnaamijka xisbigu wuxuu xambaarsan yahay himilooyinka xisbiga ee ujeeddada dhow iyo ta dheer annaga oo la kaashanayna xubnaha hoggaanka fulinta iyo xubnaha kale ee lagama maarmaanka u ah waxaannu isbeddel iyo kaabis ku samayn doonaa barnaamijka xisbiga diyaarinta iyo qabyatirka dabadiina waxaannu dhisi doonnaa hab isku xidhaya oo qorshaysan kaasoo muujinaya baahiyaha farsamooyinka lagama maarmaanka ah oo isku xidhi doona si doorashada ilaa dowladnimada loo gaadho gudoomiye xirsi cali xaaji xasan ayaa sidoo kale halkaasi ka soo jeediyey talooyin iyo baaq ku socda xukuumadda somalilan komishanka doorashooyinka iyo beesha caalamka annaga oo ku hadlayna afka xisbiga iyo ergada halkan fadhida ee kalsoonidana siisay iyo guud ahaanba xisbigu meel kastoo uu joogo waxaan halkan uga soo jeedinaynaa qodobo aan u aragnay inay muhiim yihiin oo shirweynu muhiim u arkay waxaannu dawladda ugu baaqaynaa in la ilaaliyo xasilloonnida iyo midnimada jamhuuriyadda somalilan lagana daayo wax kasta oo caqabad ku ah ama keeni kara khalkhal in laga daayo oo ay gaar ahaan xukuumaddu daandaansiga mucaaradka iyo dibindaabyada meesha ka dayso komishka doorashooyinka qaranka waxaannu ugu baaqaynaa inay doorashooyinka wakhtigoodii ku qabtaan xisbi ahaanna waxaannu diyaar u nahay oo garab ka siinaynaa wax kastoo nalooga baahdo oo wada shaqayna waxaannu beesha caalamka ugu baaqaynaa inay xaqdhowraan xuquuqda ka tashiga dadkayaga oo ay garwaaqsadaan rabitaanka bulshada somalilan ku doonayso madax bannaani buuxda oo ay kaga mid noqdaan qaramada midoobay golaha wakiilada waxaan u soo jeedinaynaa inay hoos u eegaan arrinta ciidamada qaranka halkan waxaa ka hadashay inan shalay hees ka jeedisay oo ka mida fanka iyo abwaanada somalilan waxaana halkan ay ka sheegtay in shalayba loo yeedhoo la yidhi waa lagaa gooyey mushaharkii oo ay tahay in mushaharka la siiya inay kulmiye ugu adeegto waxaannu leenahay waa gardarro waa dulmi waa sharci darro ciidamadu waa u dhex dalka waa astaanta qaranka ummadday u siman yihiin ummadday u dhaarteen dalkay u dhaarteen dibindaabyada ha laga daayo golaha wakiilada waxaan u soo jeedinaya inay hoos u eegaan arrintaa 4 sannadood oo dawladdu jirtay mushahar looma kordhin ciidamada qaranka mushahar looma kordhin waxaan leeyahay qolada baarlamaanka waxay hadda soo raaciyeen sida naloo sheegay 20% oo aad u yar waddani wuxuu ballan qaaday xilligii doorashada 250 waxaannu leenahay haddii ay iyagu indhaha ka qarsadeen hoos u eega wixii suurtagalana u kordhiya dadka reer somalilan waxaan leeyahay noo sabra waannu ka dhabayn doonaa rajada aad naga filaysaan insha allahu waxaannu gaadhsiin doonaa meel wanaagsan maalmo wanaagsan oo kuwan ka fiican ayaynu rajaynaynaa isku duubnaada oo cadowga aan meel uga soo wada jeesanno ha ku asqoomina hirdanka siyaasiyiinta ee hadba ka wanaaggiinna wada u hiisha hana ka warwarina mustaqbalka wax wanaagsan ayaa inoo soo socda idam allah waxaan ilaahay ka baryayaa inuu kuwa dawladnimada hayana dhibtooda iyo dhagartooda inaga badbaadiyo kuwa iman doonana tubta wanaagsan iyo talada khayr kale ku toosiyo idilkoodna garansiiyo wixii dan inoogu jirto aakhiradeen iyo adduunkeennaba ugu dambayn waxaa halkaasi bilado iyo shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey xubno ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ah ee waddani kuwaasi oo ahaa
gudoomiyaha shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha ismaaciil aadan cismaan ismaaciil yare axmed xuseen fakfagaash xildhibaan barkhad jaamac batuun iyo maxamed sidiiq dhamme oo ah xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga wadani shirweynaha labaad ee xisbiga wadani ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa ayaa arrimaha ku cusba ee indhaha bulshada soo jiitay waxa ka mid ahaa in gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ahna murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu xilka gudoomiyenimo ee xisbiga iska wareejiyay isagoo aan ku guuleysan jagada madaxtinimo ee uu ololaha ugu jiro iyadoo ay talaabadan ay noqon doonto sunno siyaasadeed oo cusub oo uu u jeexay xisbiyada Somaliland